kulanti haboon mar kale saaxiibadana sida tooska ugu xiran oo aan gudagalno barnaamijka waxaan soo dhaweynayaa mar kale Ibrahim Khalafe. Ibrahim soo dhawow haddii halkaasi aan uga soo weydiid qisooyinkii taxanaha oo aan ugu talagalnay saaxiibadana Hal Abuur Media. Soo dhawow Ibrahim. waa dhawahay walaalkayga CD ama wariyayna qaaliga CD ayaan hore waxaan ka soo hadalnay qiso jacayl laakiin maanta midaas way ka duwan tahay midaan maanta waxaan ka hadlayaa dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dadka dego adiga kulli aqoon ma liidan malayna laakiin waad maqashay laakiin qabiilada kale ma gargaranaysid kulli deegaanka la socda ani deegaankaas nin u dhashaan ahay qisaana ka hayaniyo waa ogtahay Hal Abuur Media markaste waxay macnaha jeceshahay inay dadweynaha wixii jiro u soo bandhigto marka qisadan shalay ayaan soo helay shalay galab waa waqti kooban waqti kooban weey ninkiina aad baa ula soo sheekaystay waana nin weyn oo mas'uul ah ka maqlay kulli aniga qisadaas waa qisi ugu cusub marka arkayna qisadaas waa soo qaatay marka CDO dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya anaga deganahay wali waxaan deganahay anaga goday iyo feerfeer inta u dhaxaysa dadka deganana Reeshabeelana loo yiraahdo meesha marka waxa degan 7 beelood ayaa degan dhulkaas dego hal beela ogaadinka oo 8 ku ah qabiilkaasna waxa la yiraahdaa Bahgar qabiil la yiraahdo way inta kale waa jariir wada Reeshabeele inta la noolna waa dad macnaha sida habar gidir oo kale deegaanka ay laftooda wax bay ka degan yihiin waa dad walaalahayna oo nolol nool laakiin deegaan ahaan hada la yiraahdo annaga macnaha deegaankaas iska leh marka dad waxa jira marka 7daas beel ku abtirsado oo qood iyo qaaraan iyo wax kasta isla dhiibo dadkaas ay 7da beel qabiil kamid ah ay qiso ka dhacday qisadaas marka rabaa in dadweynaha la wadaagoon u sheego aad u mahadsan tahay waxaan jeclahay intaanu gulagelin in halkan uga mahad celino hotelkan Embassy oo ah hotelka markaasi soo dhaweeyay hotelkan quruxda badan gaalkacyo ku yaala waan uga mahad celinaa saaxiibada markaasi halwadanada ka shaqeeya hotel Embassy oo runtii waqti jawi furan ugu soo dhaweeyay cimridan quruxda badan ee galabtay waa hotelka kaasoo ka heli kartaan chief iyo sidoo kale cuntaba aan sii gudagalno qisadii Ibrahim haddii aad hore u socoto CDO waxa dhacday maalmaha kamid ah ayaa waxa dhacday qabiilka dego ama dadka dego meel la yiraahdo tuulo la yiraahdo hela goranyo kulli dadka deegaankaas ka soo joodo way garanayaan hela goranyo dadka dego waa qabiil la yiraahdo Baajimaal laakiin dadka sidoo kale ma garan karaan laakiin dad odayaasha way garanayaan deegaankan u dhashatay dad meesha waxa jira tan ilaa hadda xoolahooda jiraan oo beeraley ah jirto oo habar gidir qof ka maqan ma laan saacada ku jira Saleemaana ku jira wax aan ku jirin ma laan macal ceer marka CDO waxa dhacday Baajimaalkaas horta waa jilaac ay jireeru leeyahay marka dadku waxay u yaqaanaan jilaacdaad meesha idinkana leeyahay annaga dawlad deegaan ahaan hadaan ka soo joodno wixii jilaac waxaan dhahnaa bilis aadiyad annaga bilis aan dhahnaa marka bilis Baajimaal la yiraahdo marka dadkaas waxay la nool yihiin Baajimaalkan dadka Baajimaalka oo meesha degan jariiri ahaayeen adiga dadka waa dad weesh ku wada nool kulli laakiin waxa la isku yiraahdaa Baajimaal la isku yiraahdaa boqolka iyo bar iyo boqol ay isla bixiyaan macnaha qood iyo qaaraan ninkii kaas Baajimaalku jariirka hada xabad ku dhufato midkaas jilaacda xabad ku dhufana macnaha waa dad walaale dadka nolosha guud bay ka dhaxaysa ka beeray wada leeyihiin dhulay wada leeyihiin waa dad walaale sida hadda ay dadkan saacadka ay camalo laakiin qisa ayaa ka dhacday meesha wiil marka Baajimaalka jariirta iyo wiil ay gabar Baajimaalkaas bilis Baajimaalka la yiraahdo ayaa is jeclaadaniyo markay is jeclaadeen adi waa la fahmay marka waxa yiraahniyo dadkaanid kuma dhax noolan karnee Khalafe ayaan isku la baxsanaynaa masaafo macna wiilkii gabadhii waa is masaafeysteen Khalafe tageen Khalaafay hawshooda ku dhameysteen oo lagu aroos gabadhii cidiyo carriisa imaatay cidii gabadha ka dhalatay oo ordaysa ayaa imaatay waa loo imaaday wiilkii dadkii waa soo dhaweey si fiican u marti sooray soo dhawaado yiri waa dhawnaha la yiri waxaan rabnaa inay yaradii gabadha aana siiso sida dhaqanka Soomaalida ahaydba
markaasuu yidhi waa diyaar laakiin aniga wuxuu yidhi dadkaygii tuulada wada degantihiin helo goranyo meesha helo goranyaa la yidhahdaa meesha dadkaygii helo goranyaa wada degantihiin aabbahay iyo dadkii iyo xoolihii meesha wada joogaane soo maka qurux badnaateen inaad dadkaygii macnaha aad tirahdeen maya la yidhaha annaga waxaan rabnaa gabar ma naga guursatay annaga gabadha kuma diidanin laakiin waxaan rabnaa in aan israacno dadkii noola tagto si fiican u soo xidhiidhno labadiinaba na keena gabadhii marka filimka meesha ka socda waa ogeed waxay tiri wareema i maqashay tiri haa ani dadkaa ma raacay tiri dadka anaga ka ogo ka dhashay ma raacayo ninkaana waa nin dhalinyaro ee marka wuxuu isleeyahay dadkan baajamaan loo maqlaya moogtahay dadka dad walaale inay yihiin buu ogay ilaa meesha naqshad kale hoos aaga jirto marka sheekadii waxaa uga soo dhacday ninkii la gubay moogta muqdisho ka dhacday middaana wallaahi middan lafteeda khatar wey ninkii waxaa dhacday cdo in gabadhii inay nimanka khasbaana isku dayeen gabadhii waa carartay marka